dulaan qaawan bay ku soo qaadeen jabhaddii gobolada waqooyi SNM tahay waxay soo qaadeen isaaqi SNM taha oo awalba maaragtay ay sheeg wuxuushta ahaa aan waxba kala aqoon ba waxa la dhihi karaa waa tahriib ay ku soo tahriibeen gobolka Sanaag dhirbaxo kulul baa lagu dhuftay dhirbaxo kulul aysan ka soo waaqsanin baa lagu dhuftay gobolka Sanaag tamala xagare dagaal baa ka dhacay dagaalka ka dhacay wasiiradii ciidanka difaaca Puntland joogay waxa uu ciidankii warsangeliyay joogay dagaal culus baa ka dhacay alxamdulillah anaga waxa naga ma dhaawacman cidna naga ma dhiman ciyaalkii gabilay ka yimid kawahooda ka carreen marya calas bay ahaayeen waxay ahaayeen cagacad bay ahaayeen cagacad gabilay laga keenay iyo waqooyi galbeed laga keenay jabad ahaa oo maaragtay jeegaan ah oo isaaq ah oo nafto oo la dhihi karo way tahriibeen gobolka Sanaag bay u soo tahriibeen waa tahriib badweyn bay isku soo maaragtay ii sheegay badweyn bay isku soo qaadeen way naftooday khatar geliyeen baa la dhihi karaa joog baa ka raacay dharbaaxan ku dhufarnay hadaan ciidanka difaaca Puntland halkaasna maaragtay jab weyn baa ka raacay gawaari baan ka qabsanay technican ka qabsanay waxaan ka qabsanay gawaarida maaragtay ii sheegay zuuga baan ka qabsanay transitaan ka qabsanay waxa kale oo ka qabsanay dashiikayaal baan ka qabsanay jeegaantii gabilay laga keenay Sacad Muuse habar awaltii soo urursaday jareerta ahaa iyo waqooyi dadkii Ingiriis gaalada maaragtay wax ku darsan jiray ba maaragtay ii sheegay waxaan qabsanay hub baan haysanaa maanta tamala xarre jiida hore difaaca Puntland afayeenka ciidanka difaaca Puntland shir jaraa'id weeye waxa kale oo aan qabsanay booyada biyo u dhaaminayaan qabsanay booyado biyo u dhaaminayaan qabanay waxa kale oo qabanay kuwa dhaqaatiira oo loo keenay gabilay laga keenay iyo Hargeysa baanu qabanay wax kale oo qabanay kuwa biyo caagado biyo ku wadaan caagado ka war caagado biyo ku wadaan baan qabanay tamaga xarraan ku qabanay yuuban ku haynaa sii deyn mayno jiidaha hore difaaca Puntland waanu haynaa isaaq oo dhan baanu sa u haynaa gabigiiga isaaq intaanu qabanay baanu koob baanu sa u haynaa isaaqa gabigooduba saasaan u haynaa koob ya habar awal iyo Sacad Muuse iyo jeegaantood iyo jareertood iyo tigroodood iyo ormadooda iyo abbo hatta abbo wataan ka war oromaan ku qabanay ka war tamar xayr oromaan ku qabanay oromo dagaalamaya abbo ya oo af Soomaaliga bartay baanu dama xayr ku qabanay waxaan ku qabanay mucaayishige waxaan ku qabanay yuuban ku haynaa difaaca Puntland waxa wasiirka amniga jooga baran gudoomiye baarlamaanka jooga wax way warsangeli ciidanka Umar reer Saalax iyo Umar iyo maaragtay ii sheegay ciidankii Dubays waxay difaacba maanta maaragtay ii sheegay bajeerteen hub lama xarin warsangeliyo waxa way ciidankiinu waa habiisan yahay waxa way jeegaanti ka waxa way maleeshiyad marya calasa oo isaaq ka war waa isaaq xuna ka war waa isaaq maxay tahay waxaas waxaas waa dhaqan xun waa isaaq ka war waa dadka shalay xoreyseen ka war ya waa dadka shalay xoreyseen maxay tahay waxaas waa laga bali karaa ma waraa anaga difaaca Puntland waan ku dhimanaa waxa waa jiidaha hore macna waxa baran barnaa inaan qaban maxay tahay baran waa ceergaaban qabanayna macna ceel afweyn baan rabnaa inaan tagno burcaan rabnaa inaan kor istaagno na samee xiliyo baa lagu joogayaa Sanaag ama waa lagu kala tagayaa warsangeliyo waa lagu kala ama xiniya lagu joogayaa warsangeli matid Umar batid iyo Dubays batid ya
anagu ma aqbalayno waan qabanay hub baan ka qabanay booyada biyo dhaaminayaan qabanay waxaan qabanay kuwa dhagala oo Sacad Muuse iyo habar awal kuwa dhagala oo laga keenay maxaa ii sheegay wajaale ka war nin wajaale qaad ku gadi jiray Warsangeli wajaale nin qaad ku gadi jiray ba maanta wuxuu ka dagaalamaya jiid Warsangeli wax soo hal aqbalay kara ma anaguna waxaan aqbalayna ma maxay tahay waan qabanay intaan qabanay baanu haynaa baran baanu ku haynaa difaaca Puntland jida hore yuubaan joognaa damal xarayaan joognaa ceergaabaan waxaan u jirnaa 30 kilomitir baan u jirnaa kaliya gaarida nooha tagta nooha ceergaan waxay u jirnaa habar Sacad Muuse jeegaano iyo habar awolay iyo oromo waraa qabanay ka war kaal fiir daaro fiirday Warsangeli fiirday anu waxaan xusuusinaya mana laga haariga libaax soo hambaabsaday nimanba maroodiga hundida haamuuside balmaan hakiyo haamuusidaan ku xafinayaa macna oromaan ku qabanay wallahi oromaan ku qabanay ka waran damal xayrnay niman oroba aan waxayna mana mar rabo inaan difaac Puntland maadaama aan ahay afayeenka guud ee ciidanka daraawiishta dawladda Puntland mar rabo inaan arrimaha military aan bixiyo laakiin oromaan qabanay oromaan hayna uraagaan hayna gambeelaan hayna tigreebaan hayna raashiq saaqo banaan cad iskeena ma jeerteen bay idinka dhigtay ora anaga ma jeerteen bana mana Warsangeli baa wax iska dhicin weeyay nimo Umar af loo boqolo wiilo Umar iska dhicin weeyay loo boqolo wiilo Umar ba iska dhicin weeydeene bal maanta yuubay idama la xaragay bal xagee joogtaanin macna meydkiina ka cararteen waxa ka maryiina ka cararteen maryi calas agagas ayaha baatiin dagaal ma taqaaniin dad waxa tiin wuxuusha dad waxa tiin oromo af Soomaaliga barateen macna jabhadan jaawareersan ee waqooyi joogta ee jaawareersan waqooyi joogan maqti shacabkii waqooyi joogay Hargeysa joogay jeegaan iyo waxa kor iyo garxajis baa kala saaran waa jeegaan iyo garxajis war maxay tahay jeegaan iyo garxajis waa isaaqa dhaxaysa ka war waa garxajis iyo jeegaan Sacad Muuse hawa war waxaan maxay tahay macna jeegaanay iskeena meesha ku jabteen waxaan ma celinayaa afayeenka ciidanka difaaca Puntland horjoogay taleefaqtan qursaan la hadlaya saraakiishi maartay isha Marya Calasta ka soo goosatay ee gobolka Sanaag aad baan ugu bogaadinayaa maadaama maartay isha ciidanka difaaca dawladda Puntland ay maartay isha ay maartay dhulkoodii iyo dadkoodii iyo maartay waxa la yiri maartay isha soo laaya gabdhihiin iyo soo laaya maartay isha dadkiin iyo soo laaya oo baran weerara baa la yiri iyo damal xareeray iyo weerar la yiri macna isaaq xuna oo adduunyada waa laga tirtiray aan xuquuq lahayn xuquuq ma lahanba reersa xuquuq hadday xuquuq leeyihiin jeegaan iyo garxajis iskuma kala saaran garxajis baa dulman oo la gumaysanaya waqooyi galbeed lagu ba ayeeda ku haya war waxaas waa la aqbali karaa ma waxa weey dadkan gobolada waqooyi jabhad baa haysata SNM baa haysata noloshoodii qof aqoon-yahana madaxweyne uma noqon waa Muuse Biixi waa Siiraayo waa balaa gabigooda waxa haysta waa military waa maleeshiyad waa suspect wax weey jeegaan iyo wax weey SNM baa haysata hubbadan baan ka qabanay gawaari baan ka dhacnay wax kale oo ka dhacnay biyo dhaaminayaan xabad madax kala dhacnay waxa weey wax kale oo aan qabanay gaari suug oo qori laba dhuuma saaran yahan qabanay dhashiikiyaal baan qabsan hub baan qabsanay ragna waanu haynaa waxa kale aan qabsanay saldhig dhan oo jeegaantu hubkoodii gabili laga keenay iyo wajaala ka war ciyaalka wajaala qaad ku cuni jiray baa maartay baran waxay rabaan xabad ka reedaan Warsangeli ciyaalka wajaala mooryaanta wajaala oo af Soomaaliyan aqoon oo maartay sheegay aboodi waa maanta wax ka dagaalamaysa baran
isnaag iyo carab dhulbaate waxaas waa la aqbali kara maaha waanu qaban waanu iska difaacnay waxaanu aragnay maadaama ay weerar soo qaadeen jeegaantu isaaqo maadaama ay weerar soo qaadeen waanu tashanay waxaan jeegaanta maxaa ka qaldan taatig baan deshinay taatiga la yiraahdo taatiga ruushka TMT baa la dhahaa waa saraakiisha sarsaraa garanaya dhinaca militariga mar hore dhinaca militariga ka hadlo afeenka ciidanka difaaca Puntland baan ahay waa tahriib waa ismiidaamin waa bad bay fuuleen badweyn bay fuuleen qof tahriibay badweyn fuulay doonbac fuulay bac bay soo fuuleen isaaqo bac bay soo fuuleen kawar hor maxaa u tahriibaysaan maxay tahay tahriibta sanaan idinka soo jirtaa maxaa isku miidaamin waa qaraska turnimo waa ismiidaamin ka war waa idinkiiba ismiidaaminaya maxay isu dilaysaan maxaa cudurtiin u waaleysaan maxaa ciyaalka wajaale iyo gabilay iyo hargeysa ama dhagax qaad ku cunay aad u waaleysaan waan ku guuleysanay difaac baan ku jirnaa jiida hore waxaan ku jirnaa waliba yuubaan joognaa ciidanka difaaca Puntland yuubay joogaan talaabo sharciga waafaqsan take action ma ka qaadnay talaabo sharciga waafaqsan dastuurka Puntland ku qoran baan ka qaadnay kamaana qaadan talaabo qaldan laguma eedan karo hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda dastuurka Puntland baan anu ku taaganay hadaan nahay Puntland Daraawish military attach hadaan nahay dastuurka Puntland baan faraya inaanu ilaalino shacabka Puntland karaamadooda iyo xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo dhulkooda badooda cirkooda iyo cirdigooda inaanu ilaalino anaga dastuurka Puntland baan faraya hadda koor waxa la yiri ani Jomo Kenyatta la iga soo celiyay basaaso airportka basan intaan ka duulay dameeraan ku laayaanu sanaag iyo bari inta u dhaxaysa hay'ad dameeraha u dooda ay soo celisay waxay tiri taliyo dameeru laay xuquuqda dameeraha ciyaalkan yarkoo jeegaanta United Nationska waxaan ka codsanaa ciyaalkan yarka jeegaanta hadhow yaan la dhihin ciyaal baa la xasuuqay ciyaalkan laga keenay gabilay ee jeegaanta waxa weeye hadhow yaan la dhihin macna anigu 10 luqadood baan ku hadalnaa macna Greece baan ku hadalnaa Faransiis baan ku hadalnaa Dutch baan ku hadalnaa waxaan ku hadalnaa mucaayisha Carabi baan ku hadalnaa 9 luqadood baan ku hadalnaa xuquuqda dadka dulman hay'adaha u dooda wax ka codsanayna bal dadkan gabilay ka yimid inay xal u sameeyaan talaabo sharciga waafaqsan baan ka qaadnay hadaan ciidanka difaaca dawladda Puntland jiida hore ee Yuube